Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ma aragtaa mararka qaar wax kugu cusub inay kuula ekaadaan inaad horay u soo aragtay, ama meel aadan weligaa tegin sida waddan kugu cusub oo kale inaad horay u timid, ama jid aadan weligaa marin, ama meel aadan weligaa fadhiisan, ama asxaab aadan weligaa la sheekaysan inay kuula ekaato wax horay u dhacay. Waxaan fasiraad ma u weysay, mana istiri iska dhaaf ha sheegin iyaanan lagula yaabin. Haddii jawaabtu haa tahay, casharkan adigoo kugu socdaa ay ka faa'iideyso lana wadaag bulshada. Arrintan waa wax jira, waxaana loo yaqaanaa déjà vu. Waa kelmad Faransiis ah oo macnaheedu yahay horaan u soo arkay. Waana xaalad xaqiiqda u dhow, taasoo dareemaysid in waxyaabaha qaar kuula ekaadaan inaad horay u soo aragtay adigoon weligaa arkin. Wuxuu qofku dareemaa in hadda ka hor ay soo martay arrintan, wuxuuna aad iskugu dayaa inuu soo xasuusto meeshay ahayd, hadday dad la fadhiyeen iyo mowduuc laga hadlay in horay looga hadlay. Arrintan waxa keeno aad ayaa la iskugu khilaafsan yahay, waxaana laga bixiyay 5 fasiraad oo kala duwan. Aqoon-yahanada baara cilladaha neerfaha ku dhaca loona yaqaan neuroscientists waxay sheegaan inay arrintan tahay cillad si ku meel gaar ah ku timid qaybta xasuusta ee maskaxda, taasoo isku qaldayso xaaladdan lagu jiro iyo mid horay u soo dhacday oo u eg. Inay cillad tahayna waxay caddeyn kaga dhigeen in xaaladdan oo kale si joogto ah ay iskugu arkaan dadka qaba nooc ka mid ah qalalka iyo markii la isla qaato daawooyinka qaar. Sidaa darteed ayay u yiraahdeen cilladdan waxay ka timaadaa khalkhal ku dhaca dhinaca xasuusta. Qolada labaad way diidan yihiin inay tahay cillad ka timid dhinaca xasuusta, waxayna dhaheen qofka sidan dareema waa qof xasuustiisu sarreyso oo si sahlan iskugu xirxiri kara dhacdooyinka maskaxda ku keydsan. Inkastoo dhacdadan aysan horay kuu soo marin, laakiin waxay dhacdo kale oo maskaxda ku keydsan iskaga ekaan karaan xagga waqtiga, jawiga, dad kula joogo iyo mowduuc laga hadlayo, kuwaasoo u sahlan dadka noocaan ah inay maskaxdooda dhaqso ay soo qabato. Qolada saddexaad waxay tiri arrintan horaa loogu soo riyooday. Dadka qaarna waxay awood u leeyihiin wixii ay ku riyoodaan inay maskaxdoodu kaydiso, marka riyo ahaan ayay u dhacday camal. Qolada afraad waxay aaminsan yihiin in arrintan ay ka baxsan tahay awoodda maskaxda bini'aadanka inay fahanto, waxayna dhaheen dadka qaar waxay leeyihiin awood ah in miyirkoodu ka gudbi karo xuduudaha waqtiga ama meesha la joogo, taasoo ay ku sheegeen prophecy ama waxyi in qofka maskaxdiisa waxaa lagu soo ridayo, laakiin qaabka iyo sababta loogu soo ridayo aan la garanayn. Qolada shanaad ee u dambayso waa kuwo cajiib ah. Waxay taagan yihiin qof walba nolol hore ayuu lahaa, laakiin markuu qofku dhasho oo 1 ilaa 3 sano jir u dhaxeeyo, xasuustiisii hore waa la tirtiraa. Marka waxaa dhacda in dadka qaar ay dareemaan raad xasuusta noloshii hore ah. Isku soo wada duuduub, arrintan déjà vu ama horaa u arkay ma ahan wax xaqiiqdeeda la hayo. Kullama la sii baarana waa lagu sii wareeraa. Fasiraadaha la hayo ilaa iyo hadda waa fikrado iyo aragtiyo isdhaafsan, ma ahan wax si dhab ah u cilmiyeysan. Talow adiga maxay kula tahay? Maxaad si ku fasiri lahayd? Ra'yigaaga noogu reeb qaybta commentiska, waana mahadsantahay.